wasiir waxaa dhawaan jirtay maamul lagaga dhawaaqay deegaanka Taleex ee Somaliland kaas oo lagu dhisay maamul la yiraahdo Khaatumo sidoo kalena waxa madaxweynaha maamulkaas Khaatumo mudane cilmi karaash uu la BBC-da maanta ka sheegay in maamulkooda kalsooni ay ka haystaan dawladda ku meel gaarka ah siiba madaxweynaha dawladdaasi adigu sidee u aragtaa arrinta runtii anigu saad ogtahay meeshan waxa lagu soo dartay sifir aad u fulfan leedahay 4.5 anigu markaa marnaba horta wix u keenaya Somaliland oo 20 years kasoo shaqeynaysay sidii dadkeedu wax ugu tari lahayd ama hore u socon lahayd nabadda dadka keentay horumarka dadkeedu keentay iyadoo weliba maaragtay aan wax gargaar dibadda ka helayn runtii wax aad iyo aad loogu amaani karo marka wax u keenaya destabilization ku sameynaya amniga iyo horumarka ay gaadhay marnaba anigu wax aan taageeraya ma aha dadkan xagga gobolka marka la sameynayna waxa jira process la soo maro oo aad ogtahay waxaad moodaa markaa processkaas maaragtay process la soo maray ma aha oo waxana waa inay u qualify garaysaan ama noqoto gobol ta kale waa inay soo martaa golaha wasiirada oo waa in lasoo ansixiya marka waxyaaba badan waxaa jira aan soo marin warqad maaragtay la saxiixa la ogolaaday ama hadal la yidhi runtii waxaan u malaynayaa inaan wax weyn ahayn laakiin taas ogolaasho wax anigu aan maaragtay aan ognahay ama ogahay oo dibadda maaragtay usoo baxeen ognahay ma aha laakiin waan maqalnay hadday maaragtay waxday maaragtay aan qiimo weyn leh uma arko leanna waxa weeyaan waa in process qof soo mara marka uu samaysanayo waa inuu meesha qofku degan yahay uu joogaa oo gobol laba iyo ka badan tahay oo maamul ay leedahay tada kale dee iska dhehun maha iska announce gare laakiin aniga muhiimadda weyn waxa weeye wax kasta oo u keenaya dhibaato ama inay wanaaga iyo horumarka iyo ay gaadhay Somaliland burburinayda maaragtay waxaan ogolaanaya anigu maaha waan gartay wasiir waxa xitaa BBC-da ka waramayay wasiiru dawlaha arrimaha dastuurka Xasan Maxamed Jimcaale isaga laftigiisuna wuxuu sheegay in madaxweynaha Khaatumo uu yimid loo aqoonsaday inay maamul ka go'an dawladda Somaliland ay yihiin marka adigu sideed u aragtaa in Somaliland oo nabad ka jirto oo aad dawlad madax banaan in maamul goboleedyo ay kasii go'aan Somaliland u taallaa oo mid dalka lagaga keeni karo ma aha samarka anigu laakiin iskaga dhawaaqa ama ogolaanshaha ama qof maaragtay ciddi doonta ha tirahdeen process baa jira loo soo maro marka la doonayo in gobol la noqdo haddaan processka lasoo marin de runtii wax ka jiraya ma aha maaragtay systemka maaragtay wax jira ma aha marka runtii maaragtay iska noqon maaha goboladaas waxa jira meel usoo marta dariiq bay leedahay saanku welina de anigu runtii marnaba wax regionka destabilization ku sameynaya oo maaragtay oo aan taageeri karaa ma jirto